kulan wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin meel baa joogtaan soo dhawaada halkan waxaan idinku soo gudbinaa wararkii dhacdooyinka kuwii ugu dambeeyay caalamka ee Soomaaliya si gaar ah dhawaanahan waxaanu diiradda ku saaraynay barnaamijyada halkan aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay dalka Kenya doorashada iyo waliba dhacdooyinka sida maalinlaha looga soo tabiyay markaas qusaysa Soomaalida laakiin arrinta sida gaarka aan isu dul taagi doono falanqeyn ka sameyn doona ayaa noqon doonta kadib markii gabar Soomaaliyeed isla markaana kamid ah kuwa ka ganacsada qaadka loo dhoofiyo Soomaaliya gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Maua ee ismaamulka Meru ayaa la sheegay in markaasi la dilay gabar ay dhashana loo geystay kufsi taa oo markaasi Soomaalida degan ismaamulka Meru gaar ahaan degmada Maua iyagu ay markaasi ka banaan baxeen arrintaasina ay markaasi ka godoodeen laakiin taliyaha ciidanka ama bandulaha ciidanka ismaamulka Meru ee deegaanka Etembe ayaa sheegay ninka lagu magacaabo Cabdi Xasan xaqiijiyay in arrintaasi ay mid sax tahay isla markaana baaritaan lagu sameyn doono. Hapa Maua kuna kisa ambayo ilitokea jana. Waxaa jirto hooyo Soomaaliyeed oo xalay halkan lagu dilay. Hooyadani waxay iibin jirtay jaadka waxayna u dhoofin jirtay dhinaca Soomaaliya. taasi waan xaqiijin karnaa halkan ayaa lagu dilay kiiskeeda wali waan baaraynaa oo baaritaan ayaa socota waan xaqiijin karnaa in maamadaasi Soomaaliyeed halkan lagu dilay laakiin kiiska wali uu socdaa oo waxa ka soo baxo waan soo sheegi doonaa sidaan ogsoonahay Soomaalidu ayaa waxay markaasi ganacsiyo aad u fara badan oo dhinacyo badan la ka sameeysaa dalkan Kenya gaar ahaan caasimadda iyo waliba deegaanada kale fog marka laga eegana Meru waxa ay tahay gunta iyadoo markaasi qaadka laga isticmaalo Soomaaliya laga dhoofiyo in tiradii ugu badnaydna halka ay ka soo baxaan beeraha Maua arrintan ayaana waxay imanaysaa Soomaalidu iyadoo markaasi dhibano u ah dalalka caalamka meel walba ay ka joogaan arrintan ayaana noqonaysa dhacdo ugub u ah sida ay afkoodaba ka sheegayaan gabdhaha banaanbaxa dhigay oo sheegay in muddo 30 sano halka ay ku noolaayeen isla markaana aysan la kulmin dhacdo tan oo kale taa beddelkeedana ay sheegeen inay dawladda ka doonayaan inay markaasi tallaabo cad ka sameeyso isla markaana aysan marnaba dib u soo noqon iyadoona dhacdada arrintan loo xaglinayo mid kamid ah beelaha iyagu markaasi ku tirada yar deegaanka ismaamulka Meru ee gaar ahaan degmada Maua waxaana arrintan ka gadooday shacab aad u tiro badan waxaana falanqeyn ka sameyn doonaa saameynta arrintan ay ku leedahay iyo waliba Soomaalidu dhibka ay markaasi ku qabto marka ay timaado dhacdooyinka caynkan oo kale maadaama ay markaasi ku sugan yihiin deegaanada Soomaalidu ay markaasi ku tiro yar tahay Maua ayaana ah gunta ugu sarreysa ee markaasi qaadka la geeyo Soomaaliya oo dawladda Kenya in mudaha ka saarna ganaax dhanka usafrinta Soomaaliya qaadka muddadii uu xilka hayay madaxweynihii ka degay Soomaaliya talada 15 bishii May Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin ugu dambeyn kulan ay Nairobi ku yeeshay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba kan xilka ka sii degaya ee Uhuru Muigai Kenyatta ay ku heshiiyeen in mar kale dib loo furo suuqa qaadka ee Soomaaliya gabadhan ayaana kamid ahaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool ismaamulka Meru ee markaasi u iibgeeyay Soomaaliya qaadka waxaana dhacdadan ilaa iyo haatan la sheegaya inay markaasi caqabad ku noqon karto dadka iyagu markaasi ku hoos noolaa oo ay ugu horeeyaan awlaadeeda oo markaasi lagu sheegay inay yihiin 7 isla markaana iyadu ay u ahayd hooyo aabo haddaba dhacdadan iyo qaabka markaasi saameynta ay ka yeelanayso Soomaalida iyo waliba waxyaabihii ugu dambeeyay ee markaasi abaanduulaha uu ka sheegay baaritaanka ay wadaan ayaan ka wareysan doonaa Cabdiraxmaan Khaliif oo isagu inta badan u dhoondoloola arrimaha la xiriira siyaasadda Kenya iyo waliba dhacdooyinka Soomaalida ku dhaca sida maalinlaha Cabdiraxmaan soo dhawow bal maxaan kala soconnaa arrintan ee gabadha Soomaaliyeed iyadoo markaasi la dilay la marjiyay ugu dambeynna gabadheedu 10 jir la sheegay in la kufsaday aad baan u dhawahay marka hore gabadhan waxaa la sheegay in ay iibiso qaadka mis ay u dhoofiso dhinaca Soomaaliya waxaa la sheegay in la ceejiyay kadibna la kufsaday gabar yar ay dhashay gabadhaasi ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in jirdil loo geystay kadibna lagu tuuray meel kamid ah meelaha lagu tuuro wasaqda magaalada Bulcada lagu tuuro magaalada yiraahdo Maua وقرت بل كوميشنرka isagu arrintan ka hadlay sida ku cad qoraalka waa nin Soomaali ah bal Soomaalidu iyadu waxa la sheegayaa in meelaha qaar Nairobi inta badan Soomaalidu waxa lagu xisaabiyaa North Eastern iyo waliba Nairobi oo markaas caasimadda ah
aadna ay ugu badan yihiin gaar ahaan islii bal mawa ma soomaali aad u tiro badan ayaa degta waan ognahay ganacsiga qaadka waxaa ka shaqeeya dad Soomaaliyeed mawa Meru ismaamulka Meru ahaan qaadka waxaa beero dadka u dhashay Meru balse ganacsiga qaadka laga qaadayo Meru la geenayo Soomaaliya waxaa ka shaqeeya dad Soomaali ah marka nimanka ka shaqeeyo waxay xaggaas geestaan ehelkooda xaasaskooda ilmahooda marka hadda gabdhaha arkayso mise mid hadda la dilay waxay ka mid ahayd shacabka Soomaaliyeed oo ka ganacsado qaadka una dhoofiyo dhinacaas iyo Soomaaliya Soomaalida wadankan Kenya ma degano oo kaliya gobolka waqooyi bari mise Islii mise Nairobi waxay degan yihiin meel kasto waxay degan yihiin tuulo kasto hadda aado Homa Bay waa ogtahay waxa ka soo galay nin Soomaaliya aan yiraahdo Migori hadda dhinaca Meru mar waxaa jirtay nin Hindi ah uu ka soo galay dhinaca Meru sidoo kale waxaa jirtay nin Soomaaliya inuu u tartamay baarlamaanka Meru laakiin inkastoo uu ku guuleysanin marka waxay u muuqataa in Soomaalida wadankan Kenya ay degan yihiin meel kasto tuulo kasto degmo kasto iyo magaalo kasto wahagaag bal isu socodka dhanka ganacsiga qaadka ee Soomaaliya la geeyo maadaama gabar Soomaaliyeed ay ku dhimatay halka isla markaana la dilay ilaa iyo haatan booliisku sida uu sheegay Cabdi Xasan oo banduulaha ciidanka deegaanka Gembe uu sheegay inay baaritaan wadaan bal saameyn ma ku yeelan kartaa oo isu socodkii dhanka ganacsiga qaadka Soomaaliya loo iibgeyn jiray Soomaalidu miyay joojin doonaan oo markaasi ma dhihi doonaan qaadkiina lama geenayo Soomaaliya ilaa arintan markaasi meel loo yeelay may taas ma dhici doonto maadaama tan la dilay ay tahay mid ka mid ah dadka ka ganacsado qaadka waan ognahay hadduu hal qof dhinto macnaha ma ahan in suuqi la xiraayo macnaha ma ahan in ganacsigii uu istaagayo waxaa laga yaabaa gabadhan inay cadaalad hesho laakiin ganacsiga qaadka la geenayo Soomaaliya ma istaagi doono maadaama mar laga heshiiyey waxaa ka heshiiyey Uhuru Kenyatta iyo Xasan Sheekh Maxamuud marka ma dhici doonto in qaadka mawa uu gaari waayo dhinacaas Soomaaliya haddii uu gaari waayo Soomaalida joogto Muqdisho ayaa dagaal iyo qayle keeni doonta marka waxaad leedahay Soomaalida uma baahna qaadka Meru iyaga u baahan ha Soomaalida joogto Muqdisho iyaga u baahan qaadka aad weyn Muqdisho kaliya lama geeyo Abdiraxmaan oo Soomaaliya iyo waliba bartamaha iyo koonfurta ayaa la geeyaa South and Central Somalia marka dhanka kale waxaa soconaya Abdiraxmaan saaxiibaduna ay la socdeen in muddo arrimaha doorashooyinka Kenya oo markaasi iyadu soo idlaatay laakiin calaamad su'aal ay saaran tahay ilaa iyo haatan natiijadii uu ku guuleystay musharaxii madaxweyne William Samoei Ruto oo hogaaminaya xisbiga UDA waxaa soo gabagabowday si guud tirinta iyo maxaan ku raahdaa wax walba la xiriira doorashada Raila Amolo Odinga xisbiga Azimio la Umoja ayuu hogaamiyaa in muddaana wuxuu soo hogaamin jiray xisbiyaad u tiro badan oo ODM ka mid yahay oo NASA ka mid yahay xisbiyaad u tiro badan ninkan markii shanaad ayuu dhacayaa oo natiijada waa laga guuleystay ama waa la dhacay ayuu leeyahay Moses Wetangula saaxiibada waa ay la socdeen baraha internetka iyo waliba warbixinada soo gelinayna waxa uu sheegay in odayga intuu isdajiyo dawladda ka mid noqdo soo dhawaado la sharfo lagu sharfo inuu ahaa ra'iisul wasaare hore lagu sharfo inuu ahaa nin siyaasadda Kenya dhadhan u yeelaya marka laga hadlayo mucaaradada waxa uu diiday natiijadii waxa uu yiri waxaan aadaynaa maxkamadda Supreme Court-ka qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa warqad qoray oo maxkamadda geeyay walow la sheegay inay baalmareen nidaamka loo maro gudbinta qiraalka arrimaha la xiriira dacwadaha iyo waliba afkaaraha laga haysta marka qof laga hor imanayo petitionka bal xilligan waxaa la sheegayaa William Ruto inuu helayo taageeradii ugu badnayd dhanka Soomaalidu walow aan ognahay in codeyntii doorashada dhacday North Eastern gobolada la isku yiraahdo dhan in Soomaalidu aysan haba yaraatay u codeyn xisbiga UDA marka laga reebo Marsabit oo iyagu u codeeyeen baa la yiri qaar kamid ah dadka ku nool xisbiga UDA United Democratic Movement xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Ali Roba oo ahaa governorkii ka dhacay xilka ismaamulka Mandera qof kale uu wato ayuu kansaday oo Maxamed Aadan Khaliif la dhaho maanta waxa ay ku kulmeen hoyga uu ka degan yahay magaalada Nairobi gaar ahaan deegaanka Karen madaxweynaha haatan dooran William Samoei Ruto soo dhaweyn qada sharaf marxabeyn kulan ayaa meesha ka dhacay bal saameynta doorashada kiiska lagu wada in maxkamadda uu ka furmo xilliga uu furmayo iyo qaabka ay wax ku socdaan bal haddii aad nala wadaagto maadaama si gaar ah arrimahan u eegis
marka hore UDM cali roba kooxdiisa waxay la kulmeen William Ruto maalintii shalay maanta ma ahayn waxay saxiixdeen heshiis bay saxiixdeen waxay u muuqataa in cali roba uu u arko in haddii uu taageero Azimio uu ku biiri karo dhinacaas iyo maxaa lahaa mucaaradada oo kursigiina la weynaaday marka wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo dowladda isaga wuxuu isleeyahay William Ruto ayaa noqon doona madaxweyne taas ayaa keentay inuu hunguri ka galo inuu isagana uu ku biiro dhinacaas iyo dowladda laakiin haddii uu maanta ku biiray UDM cali roba iyo kooxdiisa ma ahan in shacabka Soomaaliyeed iyagana ay ku biirayaan dhinacaas iyo UDA waan ognahay in shacabka Soomaaliyeed Garissa Wajir iyo Mandera in ay 90% ay u codeeyeen Raila Amolo Odinga ninka ka soo galo governaha ka soo galo Garissa Wajir iyo Mandera sidoo kale waa dad ka tirsan xisbiga Azimio laakiin waxay u muuqataa in ninka la yiraahdo cali roba uu isaga hunguri ka qabo in uu ku biiro dowladda hungurigiisa ayaa xagga geyma ahne wax shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan maahan marka hadee waa arrintii la dhihi jiray ee Soomaalida siyaasadda saaxiib joogta ama le dan joogta ay leedahay marka cali roba waxa leedahay wuxuu ka dhaxarkay siyaasadiisa iyo waliba hungurigiisa isbedelo ayaa dhacay oo markaasi ah in senator uu noqdo sanadkan cali roba inagoo ognahay inuu ahaa governorkii hore ee Mandera oo markaas isagu lagu xasuusto dadaaladii uu ka galay sidii loo sameyn lahaa systemka doorashooyinka isla markaana uu aad u taageeray Maxamed Aadan Khaliif oo la xasuusto in dadka ka soo jeeda Mandera ee mucaaradka ku ahaa ololihiisa inay aad markaasi aflagaado iyo waliba waxaan u wanaagsaneyn dhagahay dhaayaha ay markaas u jeedinayeen xisbiga UDM yaa xigi doona marka hore waa inaan xusno meeshan cali roba waa ninka kaliya oo Soomaaliyeed oo sameystay xisbigiisana ay heleen 2 governor hal senator iyo ku dhawaad 7 MP xildhibaano uu helay marka waxay u muuqataa in ninkan uu horumar sameeyay inkastoo uu mardhow ku soo biiray siyaasadda hadaa fiirso Aadan Bare Ducaale wuxuu siyaasi ahaa in ku dhawaad 20 sano laakiin ninkan mardhow ayuu ku soo biiray haddana wuxuu sameystay xisbigiisana maanta la joogo wuxuu helay tiro fara badan oo siyaasiyiin ah kaalin muglan uu ka gelaya marka howlgalka haddii uu markaasi maxkamadda ay u cadeyso inuu sii ahaado madaxweyne uuna hogaamiyo William Ruto waa hagaag dhinaca kale marka haddaan intaa kaga tagno dhanka la xiriira kulankan iyo waxyaabaha markaasi ku aadan inay ka wada hadleen doorashadii muran ayaa ka dhashay sidaan wada ogsooneyn xisbiga Azimio la Umoja ee Raila Amolo Odinga iyo waliba Martha Wangari Karwa ay hogaamiyaan KICC ay kulan ku qabsadeen waa ay ka soo horjeesteen waxay ku tilmaameen invalid election Wafula Chebukati ay sheegeen inuu ahaa mid markaasi jabiyay mid ka mid ah shuruucda dastuurka qaranka Kenya muddo kooban ayay haysteen saaxiibada waa la socodsiinayeen marba mar ka dambaysa qaabka ay u socdeen muddadii maxaa ka haray goorma ayaysan maxkamadda ugu dambeyn u gudbin karaan waxay gudbin karaan maalinta Isniinta oo ku beegan maalinta 22 marka waxaan filayaa in Raila Amolo Odinga maanta mar uu hadlay wuxuu sheegay in ay hayaan cadeymo ku filan in maxkamadda ay sheegto in William Ruto uu dhacay codadka sidoo kale waxay rabaan in xabsiga loo taxaabo gudoomiyaha IEBC ee Wafula Chebukati waxay sheegeen in Wafula Chebukati uu jibiyay sharciga wadankan Kenya taasoo keeni karto in isaga xabsiga loo taxaabo Raila Amolo Odinga mar uu la kulmay culimada wadankan Kenya kuwa kaniisadaha iyo kuwa muslimiinta waxay ku heshiiyeen in asaga uu cadeymahan geeni doono maxkamadda Supreme Court halkaasoo lagu wado in haddii maxkamadda laga dhaadhiciyo in ninkan laga guuleystay in ay ku dhawaaqi karto in Raila Amolo Odinga uu guuleystay mise ay ku dhawaaqi karto in dib loogu celiyo doorashada mise ay ku dhawaaqi doonto in Ruto uu yahay shakhsiga saxda ah loo doortay laakiin hadda aniga ahaan markaan fiiriyo markaan qiyaaso waxay u muuqataa in maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto in doorashada dib loogu laabto inkastoo dadka qaar ay qabaan in maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto in uu Raila Amolo Odinga guuleystay وهاجاج تاس سو مجلين كرتو وجه كلا سياسات حلي أنا قلنا هاي دالك كينيا إنه كجرو كرايسيس حق النلاش يوري بقالها ومركزي أدو هو سيسو dadka qaar isagu ka dhashay ninka lagu magacaabo Raila Amolo Odinga oo markiisii shanaad isagu ku guuldareysanayo qabashada xilka madaxweynaha dalka Kenya inay yiraahdeen usionekane Kisumu oo micnaheedu tahay yaanan Kisumu lagu arkin marka soo ma dhici karto in xataa hadii ay tiraahdo maxkamadda waa lagu celinayaa doorashada in loo soo bixi waayba dadkii codeyn waayaan Raila Amolo Odinga uu og yahay tan ayaa ugu dambaysa mar kale ma tartami doono maadaama uu og yahay in hadda sii duqo waayo marka waxay u muuqataa in Kenyaanka
ay si aad u badan usoo bixi doonaan maadaama ay doonayaan in ay sagootiyaan duqan ay ku sheegeen inuu yahay aabaha wadanka ogtahay baaba waxaa lagu yeeraa baabaha waa aabo ugu daada weyn oo markaasi dadkiisana aad waxaa jiro shacab badan oo kasoo jeeda dhinacaas Kisumu iyo gobolka Nyanza oo sheegay in ninkan uu bacaw yahay maadaama 5 mar laga guuleystay 5 mar la dhacay laakiin waxaan ognahay ninka la yiraahdo Baba Raila Amolo Odinga wadankan uu soo halgamay wadankan uu soo dagaalamay marka wuxuu doonayaa in markii uu dambeysay uu ku guuleysto jagada uu hadda kula loolamaayo William Ruto waa sababta de uu u yiri Soomaha ninka lagu magacaabo Moses Wetangula oo isagu xilligan la sheegayo in loo magacaabay inuu noqdo speaker National Assembly speaker ama markaasi afayeenka golaha shacabka baarlamaanka Kenya inuu yiraahday de odaygeeni baa tahay waan ku amaanaynaa waan ku sharfaynaa bal tartiib de inta dawladda gacanta qabsato nabadda aan ka shaqeyno maxuu ku diidan yahay maxay tahay sababta u keenaysa Raila in mar walba isaga la dhaco walow dadka qaar ay ku eedeynayaan sanadkan inuu markaasi wakiilada u joogay polling stationada ama xarumaha laga codeeyo inay ahaayeen kuwa aanan fiidhooneyn ama markaasi aanan foojigneyn oo codadka xitaa la sheegay in lagaga shubtay taasina ay tahay sabab iyaga ay sameeyeen waxaas waxaa loo yaqaanaa shukaan sidii cusuubay wuxuu doonayaa in Raila Amolo Odinga uu u daayo dawladda wuxuu doonayaa in Raila Amolo Odinga uu dhaho aniga dawladda waan ii daayay Ruto ay guuleystay marka iniga dawladda wada laakiin Raila Amolo Odinga wuxuu diyaar u yahay in uu cadeeyo qaabkii loo dhacay wuxuu diyaar u yahay in uu cadeeyo in William Samoei Ruto uu tuug yahay وهاجاج محكمة هذه عداني ويس محا حيجي كرا ومركز محكمة جوانا وياه مركز هذه وحلقنا واقع دونا إنه قوليستي روتو كتبنا هذه وحلو بريق دونا دلا ودن كينيا وهاجاج هذا يوم هسين هاي عبد الرحمن يوكاسي ولا سعودي وركي قدام بيه حالات ده دور شدة دل كينيا يولي بدع دوينك حزبية ذا يولي بكل مدى اللجا يليو أرمها السياسة ده حلي متكمدة جن عستدا دنك قات كي سومالي ده وجبرة لجود دلي ديجانك ما هو ismaamulka meeru iyadoo baaritaana ay socdaan wixii ka soo kordhaa booliiska iyo waliba dhacdooyinka la xiriira gabadhaas la dilay iyo waliba gabadheeda oo markaas iyadoo la kufsaday xilli ay ahayd hooyo aabo familkeeda oo markaas 7 caruur ay markaas ku korinaysay muruqmaalna ka ahayd wixii ka soo kordhaa waa daawan doontaan saaxiibayaal iyo waliba dhanka maxkamadda oo kiiska la geyn doono waqtiyada soo aadan oo markaas Raila Amolo Odinga noqon doonto markii ugu dambeysay inuu ka tanaasulo oo ugu dambeyn laga guuleysto ama inuu dib u guuleysto xilli arrinta haddii ay markaas noqoto in Raila Amolo Odinga lagu dhawaaqo ama maxkamaddu ay tiraahdo dib ayaa loo tirinayaa ama dib ayaa loo codeynayaa ay keeni karto arrimo kale oo la xiriira qalalaasa wadanka u gala xilli dadka qaar ee Kenyaanka ay markaas sheegayaan in odayga la sagootiyo isla markaana isjiijid dheer la sii gari karin iyo waqti dhumis xilli komishanka IBC dhankoodana ay markaas helaynin dhanka dhaqaalaha qandaraasyada oo markaas doorashadan ay ku baxday lacag aad u tiro badan marka laga eego dhanka qadka internetka warbaahinta iyo waliba dhaqaalaha dadka ka shaqeynayay ee doorashada oo markaas tiro aad u badan lacag ay ku baxday ilaa iyo haatan Uhuru Muigai Kenyatta oo madaxweynaha xilka ka degaya ayaa isagu ka hadlin arrimaha la xiriira isqabqabsiga natiijada doorashadii dhacday oo ilaa iyo haatan uusan wax wara ka sheegin tan iyo kulanti dambe intaan dib ugu kulmeyno warar iyo warbixino kuwan ka duwan waxaan idinku dhaafeynaa saaxiibayaal sidaa iyo nabadgelyo